maanta waxa aan soo koobaynaa buugga Why A Students Work for C Students ee uu qoray Roberto Kiyosaki. waxa uu iftiiminayaa sababta ardayda eeda qaata ay ugu dambeynta ay ugu shaqeeyaan ardayda siida qaata. buuggu wuxuu diiradda saarayaa sida nidaamka waxbarasho ee hadda jira uu ugu diyaarinayo ardayda si ay shaqooyin ugu helaan, laakiin uusan u bareenin xirfadaha maaliyadeed ee muhiimka ah ee loogu baahan yahay in lagu noqdo milkiilayaal iyo maalgashadayaal guuleysta. fahamka ardayda eeda iyo kuwa siida. ardayda eeda qaata waa kuwa ku fiican akhriska iyo barashada waxyaabaha loo soo bandhigo. waxay yihiin kuwa badanaa ku dadaala inay ku guuleystaan imtixaanada oo ay helaan darajooyin sare. si kastaba ha ahaatee, buuggu waxa uu cadeynayaa in guusha akadeemiyada aysan ahayn had iyo jeer mid ku horseedi karta xorriyad iyo isku filnaansho dhan dhaqaale. ardayda siida qaatana waxa ay noqon karaan kuwa ku fiicneen nidaamka waxbarasho ee caadiga, laakiin badanaa waxa ay leeyihiin xirfado, hal abuurnimo, hogaaminta iyo ganacsiga oo aan lagu baranaynin dugsiyada. buuggu waxa uu tilmaamayaa in ardayda siida qaata ay u badan tahay in ay yeeshaan ganacsiyo iyo fursado maalgashi oo u horseedi kara xorriyad dhaqaale iyo mid hogaamineed. nidaamka waxbarashada iyo dhaqaalaha. Kiyosaki waxa uu dhaleecaynayaa nidaamka waxbarashada ee hadda jira oo uu sheegay in xoogga lagu saaro sida ardayda loogu diyaarin lahaa shaqaalenimo halkii la bari lahaa xirfado maaliyadeed iyo kuwa dhaqaale. waxa uuna sharaxayaa in dugsiyada lagu baro ardayda sida loo noqdo shaqaale wanaagsan, laakiin aan lagu bareenin sida loo noqdo milkiilayaal iyo maalgashadayaal. xirfadaha maaliyadeed. Kiyosaki waxa uu ku adkeynayaa in barashada xirfadaha maaliyadeed ay muhiim u tahay si loo gaaro guul dhaqaale. waxa uuna soo jeedinayaa in ardayda la baro sida loo maareeyo lacagta oo loo sameeyo maalgashi iyo sida loo abuuro ganacsi. buuggu waxa uu si gaar ah u tilmaamayaa muhiimadda ay leedahay in la yeesho ilo dakhli oo kala duwan, sida ay ugu caawin karto in la helo xorriyad dhaqaale. hogaaminta iyo hal abuurnimada. hogaaminta ayuu ku sharaxayaa Kiyosaki. waxa uuna leeyahay ardayda siida qaata badanaa waxa ay leeyihiin xirfado hogaamiyadeed oo xoogan, waxayna awood u leeyihiin in ay hogaamiyaan kooxo, in ay qaataan go'aano, sidoo kalena ay la tacaalaan caqabadaha soo wajaha. waxayna yihiin kuwa ku fikira sidii ay u abuuri lahaayeen fursado cusub iyo sidii ay u horumarin lahaayeen kuwa jira. waxa uu ka hadlayaa hal abuurnimada. waxa uuna leeyahay Kiyosaki ardayda siida qaata waxay badanaa leeyihiin hal abuurnimo, waxayna arkaan fursado halka kuwa kale aysan arkin, waxayna abuuraan xalal cusub oo wax ku ool ah. Kiyosaki waxa uu ku adkeynayaa in hal abuurnimada ay tahay mid ka mid ah fursadaha guusha ganacsi iyo kuwa maaliyadeedba. fikradda Kiyosaki ee horumarka shakhsiyadeed. buuggu waxa uu sidoo kale diiradda saarayaa horumarka shakhsiyadeed iyo muhiimadda ay leedahay in la yeesho aqoonta maaliyadeed iyo tan ganacsi. waxa uu ku boorinayaa dadka in ay raadiyaan fursado ay ku baran karaan xirfado cusub oo ayna ku horumarin karaan naftooda. Kiyosaki waxa uu tilmaamayaa in dadka ay helaan macallimiin iyo la taliyayaal ku xeel dheer maaliyadda iyo ganacsiga si ay ugu caawiyaan inay gaaraan himilooyinkooda. buugga Why A Students Work for C Students wuxuu soo bandhigayaa aragti cusub oo ku saabsan sida waxbarashada iyo xirfadaha maaliyadeed ay ugu wacan yihiin in qofku uu helo xorriyad dhaqaale. Roberto Kiyosaki waxa uu ku boorinayaa akhristayaasha inay dib ugu fikiraan nidaamka waxbarasho iyo inay diiradda saaraan barashada xirfadaha maaliyadeed iyo ganacsi. waxa uuna ku adkeynayaa in guusha nolosha aysan ku jirin darajooyin akadeemi ah, balse ay ku xiran tahay fahamka iyo hirgelinta xirfadaha maaliyadeed iyo ganacsiga ee muhiimka ah. waxaan halkan ku soo gabagabeynay buugga Why A Students Work for C Students. waxa inoo balan ah muuqaalkan muuqaalka xigo.